بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن كسر دوّا برنامج كنا نبكي هذا القيبتن waxaynu ku eegi doonaa ama aan kaga hadli doonaa xogihii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda wadanka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe ayaynu eegi doonaa degmada Aadan Yabaal iyo hareeraheeda ayaynu eegi doonaa maxaa ka jira waxa ay la joogaa saaxiibkay Barreelka Xasuudow aad ma santaan noo dhawaad daawashana salaamina way bal hadda ka waran maxaa u dambeeyay Shabeellada Dhexe waxaan hiiraan baaladii laga soo shameeyay xaqana waa cadali xaqana laga soo shameeyay balantu dhinaca Aadan Yabaal bay ahayd maxaa u dambeeyay nuru ma santahay Aadan Yabaal waxay kamid ahayd meelaha ugu hadalaynta badnaa al-shabaabna ay ku sugnaayeen waliba waxa la sheegaa in Aadan Yabaal ay ahayd saldhigga ugu weyn al-shabaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe tan iyo markii intii howlgalku bilowday Aadan Yabaal loo hadalay maxaa loo gaari laayahay oo kii ciidamo badan ay jireen oo magaalada Muqdisho ka soo baxayay kuwaasi oo mararka qaar meel ay aadeen iyo meel ay ku dambeeyeen aan madaka loo tabinin oo aan xogtooda la helin marka laga reebo in maartay markii Muqdisho ay ka soo baxayeen oo kale sawiradooda laga soo qaaday iyo waliba ciidan dadka la wadaagay laakiin wixii ka dambeeyay meel ay dadka qaar ay lahaayeen malaha dib ay u laabteen oo Muqdisho dib u laabteen xanuun baashi balcad ka soo laabtay hadiyad markii Aadan Yabaal waxa kamid ahayd meelihii ugu hadalaynta badnaa oo ku al-shabaabna ay ku xooganaayeen dawladuna ay in muddaha ka wareegayso oo aysan maartay gaarin shalay waxa soo baxaysay in ciidanku ay wax yar u jiraan magaaladan ama degmadan Aadan Yabaal oo dagaalku maartay ciidamadu ay aad u diyaarsan yihiin isla markaana ay ku jireen diyaargarowgii iyo saacadihii ugu dambeeyay ee ay maartay ku doonayaan in magaaladan ama degmadan ay gacanta uga dhigaan nuurow hadda daan daawadayaasha la wadaagno xogta ugu dambeysay waxa ay sheegayaan gaar ahaan wararka aan ka helin gobolka Shabeellaha Dhexe in uu socdo howlgalkii ugu dambeeyay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay kula wareegayaan degmada Aadan Yabaal ee gobolkaasi Shabeellaha Dhexe ururka al-shabaab ayaa isaga baxay baa degmadan maadaama culays badan uu soo fulay oo ciidankii dawladda iyo kuwii deegaanka oo huwan maartay huwanta ahaa ay ku hareeraysan yihiin magaalada oo ay hareerayeen culayskaasi faraha badan markuu soo fuulay ciidanku ay jihooyin badan ay maartay iskaga hareerayeen degmadan ayay waxa weeye al-shabaab bilaabeen in ay magaaladeen ama degmadan ay ka huleelaan oo ay ka baxaan wararku marka nuur intaas waxay ku darayaan in qaraxyo culus ay ka dhaceen magaalada kadib markii ururku ay ka sii baxayeen tusaale ahaan waxa la sheegay wadooyinkii magaalada laga soo galay iyo xarumihii dawladda ama xarumihii maartay fariisinka iyaga u ahaa ay ku shaqeynayeen in qaraxyo waaweyn ay ku xiraan markii ay saa uga baxeen ay qaraxyo waaweyn ay magaalada ka dhaceen oo culus oo maartay isqabsaday waxaana la sheegay inay ahaayeen miinooyin ay maartay ku aasheen ama ay ku xireen wadooyinka laga soo galo degmada iyo sidoo kale xarumaha muhiimka ah ee iyaga fariisinka u ahaa ee magaalada gudaheeda ahaa sidoo kale waxa degmada isaga barakacay shacabkii si ay uga fogaadaan colaadda iyo in waxyeello ay ka soo gaadho maadaama ciidankan dawladda iyo maartay kuwan deegaanka huwanta ay in muddo ahba diyaar garow soo wadeen maalmihii dambeeyna culays ay saarayeen hareeraheedana dagaalo ay ka socdeen dadka shacabkana ay dareemayeen in magaaladan uu howlgal culus uu ku soo socdo dawladuna ay aad ugu diyaar garowday hadda waxa ay bilaabeen in dadkii shacabka ay magaalada ka barakacaan oo ay maartay ka huleelaan si ay uga fogaadaan khasaaraha iyo maartay dhibaatada dagaaladaasi ka dhalan kara nurow sidoo kale haddii aan fiirino ciidamada dawladda waxa sargaal u hadlay oo la yiraahdo Abshir Wadani waxa uu sheegay in magaalada ay isku wareejiyeen ciidanku oo ay dhinac walba kaga sugan yihiin laakiin aysan si fudud dib u gali karin maadaama kooxdii ku sugnayd ay miinooyin badan ay ku aaseen wadooyinka magaalada laga galay iyo xarumihii kale ee maartay fariisinka u ahaa al-shabaab waxa la sheegay in Aadan Yabaal ay u haysan dhigii ugu weynaa ee gobolka maartay Shabeellaha Dhexe ee ay kaga sugnaayeen taa micnaheedu waxa weeye hadda gobolka Shabeellaha Dhexe in uusan jirin goobo muhiim ah oo hadda ay ku sugan yihiin maadaama goobtii ugu muhiimsan ama saldhiggii ugu weynaa ay hadda ka baxeen oo ciidanka dawladda ay ku hareeraysan yihiin isla markaana lagu wado saacadaha inagu soo foole in maartay gudaha ay u galaan laakiin hadda wixii hadda culays ahaa ee badnaa waa yaraaday al-shabaab waa ka barakaceen xitaa xaasaskoodii iyo carruurtoodii waxaa leeyihi way ka kaxayseen magaalada dee meeshii kale markaasi ay ku badbaadi karaan kale ay maamulayaan
مدبي دad ayaga dad shacab meesha deganaa Soomaaliya oo aan iyaga ahayn warbeesha haystaan oo iyaga ka dhigay maya qofkiisa ka tirsan waaba iyaga moogtahay laakiin dad shacab oo ama taageeraha u noqdaan ama aysan taageersanaan laakiin ku hoos nool oo deegaanada ay maamulaan deegaanaha ku nool ayaa jiray dadkaas laskooda way barakaceen oo culayskiisa raa'iyo dagaalka socda markay arkeen iyo rasaas dhacaysa iyo hareeraha magaalada wixii ka socday iyagu laftooda isaga barakaceen si aysan dhibaato iyo culays aysan uga soo gaarin iyo khasaare marka magaaladu aad bay maartay okay aqoontiye marka miinooyinkan iyo waxaan sheegaysa magaalada ka dhacay markay ka baxeen maatadoodina kala baxeen ma ciidamada dawladda galay oo meesha khasaare ka soo gaaro miinooyinka lagu qarxiyay mise baqdin un ciidamadii soo gaarin ayay si maartay magaalada looga baqdo ayay miinooyinka si qarqarxay may ciidamada dawladda wali maysan gudaha u galin wararka ugu dambeeyay sida ay sheegayaan ciidanku magaalada ay ku hareeraysan yihiin sokol mar waxa dareemi kartaa magaalo in muddo ah ay haysteen al-shabaab oo sanado ay haysteen saldhiggii ugu weynaa ee gobolka Shabeellaha Dhaxana oo ahayd ciidankii hadiiba ay al-shabaab ka baxeen oo culays loo soo saaray ciidankii dawladda inay dirba si fudud u galaan aad bay u adag tahay waan xasuusanaa in maartay ishag meesha kale ayadana waxa way dhibaatadu ka dhacaysay ciidanka dawladda ay galeen ee gobolka ayadana ka tirsan magaceedii oo gobol Shabeellaha Dhaxaa meel iyadana meeshii masjid Caligood meeshii dadka waxa weeye iyadana waxa weeye dadka la isku xirxiray soo iyadana dadka isku xirxireen ee qaraxyadu ay dhaceen maartay khasaaruhu ka dhashay si lamid ah ciidanku sida hadda xogahan ku helayno way ka fajigan yihiin inay dirba isa galaan maadaama ay cabsi ka qabaan miinooyin iyo qaraxyo lagu aasay oo hadii ay galaan dhibaato u geysan kara marka ciidanku ma aysan galin laakiin al-shabaab markii ay ka baxiyeen miinooyin iyo maartay qaraxyo ku aasay xarumihii ya qaraxyo طبعا iyagu ma kulli qaraxyay miinooyinku qaybna taabasha ku xidhan qayb waxa jira waqti lagu xeeyo qayb telefoon baa lagu haga marka sidoo ma noqota iyaga kulli hagayo garanayay way qarxiyeen marka ciidanka dawladda laakiin wali gudaha maysan u galin way ku hareeraysan yihiin iyaguna way ka baxeen dadka shacabka hana inta badneed magaalada way ka qaxday kuwana al-shabaabna xaasaskooda iyo caruurtooda iyaga laftooda way ka kaxaysteen marka magaaladu way haawanaysaa ciidankuna waxa uu nada muuqataa inay marka hore la diri doono sahan soo qiimeeyo magaalada in la gali karo iyo in kale xaaladda la qiimeeyo laakiin aan lagu dedeegi karin maadaama nimanka muddo ay haysteen haddana ay muuqataa saansaanta saameynta ay kaga tageen oo qaraxyo ay ku aaseen marka si guud hadda waxa muuqata sida wararka aan ku helayno in aadan yabaal ay ka baxday gacanta al-shabaab isla markaana gacanta dawladda hadda ay ku wareegayso ciidankina ay ku hareeraysan yihiin in muddahan waa la hadal hayay oo degmadan dad badan baa waxa weeye isweydiinay sababta ciidamada dawladda ay u gacanta u dhiglayeen way dawladda Soomaaliya hadii aadan yabaal qabsato maxay uga dhigantay marka shabaabna ay gacantooda ka baxdo runtii xagga dawladda iyo guuleyn bay uga dhigantay degmadan oo saldhiggii ugu weynaa ururka al-shabaab ay gacanta ku hayeen ama ay ku sugnaayeen muddo sanado ah ee gobolka Shabeellaha Dhaxaa si la mid ah sidii gobolka hadda Hiiraan in badan oo kamid ah looga maartay xoreeyay al-shabaab ayaa hadda aad moodaa in gobolka Shabeellaha Dhexe in badan oo kamid ah ayadana lagu xoreeyay oo saldhiggii ugu weynaa al-shabaab ay ku lahaayeen hadda lagu xoreeyay marka tani dhabar jab iyo khasaare ku taal al-shabaab xagga dawladana guul weyn ay uga tahay maalmihii la soo dhaafay waxoogaa yar gaabis baa jiray xagga howlgallada ah laakiin hadda waxaa moodaa in waxa weeye dhowrkii beri u dambeeyay ciidamada dawladda hadday noqoto galmudug iyo haddii ay noqoto dhankan Shabeellaha Dhexe ama maartay Shabeellaba in waxoogaa waxa weeye maartay horay loo yar amba qaaday oo dib loo bilaabay howlgalladii taasina waxay muujinaysaa hadda in aadan yabaal oo ah degmo maartay in muddo ay ku sugnaayeen al-shabaab dadkuna aad ay u hadalhayeen ciidanka dawladana in badan una ay lahaayeen waan qabsanaynaa aan ku soconnaa hadalhaynteedina ay baato hadda inay ugu dambeyn ciidanka ay ku hareeraysan yihiin saacadaha socdana ay gacanta ku dhigi doonaan al-shabaabna gabi ahaanba ay ka baxeen marka dhinaca u jeesteen iyo ma la sheegay meel ay markaas al-shabaab may hadda xogta aan hayno ilaa hadda lama sheegin meel ay u jeesteen ama ay aadeen طبعا لما نوغان كرو مادام ciidanku magaalada waa ay soo weerareen magaalada ma artay dhinac kasta kama soo weerar karaan nimankan carray waa dhinac la banaya waa in jaada uu kicilaa loo marka dabcan waxay ka dhigan tahay inay soo aadeen dhinacan iyo koonfur galbeed dadka oo maartay beeraleyda ila kor haday carray cali jeeta ka horeeya dadka beeraleyda bal doofaar la jira ma doofil dhaho oo beeraha laga celiyo marka hadaad hareeraysan oo dhinac koodba laga maro naftu waxa way markay arday soo qaado waxa way wuxuu leeyahay bahla daagal dhaho cad buu leeyahay kuwaas ku qaad marka uu yaraa waynaad meel u banaysaa oo ka baxo marka waa in meel loo baneeyaa marka dagaal ugu qaad marka kulli
meel maartay loo baneeyay waana baxeen ilaa ay hadda ciidanka dawladda iyo iyagaba koodna kama hadan dhinaca ay baxeen iyo halkii ay aadeen iyaguna damaba sheegayaanba ciidanka dawladdu ma ogaan karaan dhinaca ka baxeen kasoo ay qiyaasi karaan jihada ay aadeen marka la fiiriyo jihada ay ciidanka kaga aadan yihiin haddana ma aysan ka hadlin laakiin waxaa la sheegay in ay gabi ahaanba magaalada iyaga iyo xaasaskoodiiba ay ka baxeen ciidanka dawladda ay gacanta ku dhigeen ama ay ku hareeraysiin hadda saacadaha socon lagu wada in magaalada ay gacanta ku dhigaan waa hagaag aad buu mahadsan yahay saaxiibkay Bareel Kacsa ayuu ahaa inta ku soo gabagabeeyay qodobkan intaan mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.